wiil yar waxa ka soo baxay social media leh sheekh umal baan isku qarxinahayaa markaan isqarxiyo nabi maxamed baan u tagayaa ii soo duceeyo kulli dadkii waxay yiraahdeen war wadaada inta lagu qarxin soo cararbay waa dadkii asxaabta ah waa dad war waxan wax jira ma miidiyu soo wax u bubnay wax ma jiraan mar waxa la yiri hotelkii baa loogu dhacayo wadaadkii baa la cararayba telefoonka ugu soo dhacay war shay xageed joogtaa war ma lagu helay war ma dhaawac baad marka kadeedanay ummadii waxa ka maqan war waxan meesha lagu soo daadinayo 99% wax jira ma aha ruux qol galay oo muxuu ahaayay isa sawiray oo laga yaabo inaan la wehelinin xataa telefoonkiisa isku sawiray baa soo tuuray markaas waxa lagu leeyahay balaaya dhacday marka waxa inaga maqan mabaadiidii tathabutka in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wax in la iska hubiyo ha kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a abu nabi sallallahu alayhi wasallam ruuxa dambi been waxa ugu filan wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo ama sheer gareeyo ama sii faafiyo ruuxan wax jira ma marka waa duruus marka waxaad arkaysaa hadda dadka sheer gareynaya commentiga bixinaya ma ogsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxa baa wuxuu soo xidhanayaa 100 shaati 100 magac buu wuxuu ku soo galayaa social media soo saam ula socotaan waa hal ruux ogow markaasuu commenti gareynaya magac buu commenti gareynaya haddana ku kala waa wareey war barnaamijkii ummadii baa ka hortimid baa la leeyahay war maxaa ka hor yimid hal ruux oo kolba shaati noo xidha waa sida oday jirjirooli marka waxa jira iyo say wax u jiraan hadayna wacyigeeda yeelanin waxa dhacaysa marmarka qaar kood in god la inagu tuuro saas daraadeed social media iyo waxa ka socday iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadara tan ma kaliya ma laakiin mabda ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelan waxa kamida fawdada masaa'isha sharciga cadama marjiciya umadani wax ay khasaarto diinteeda ugu khatarsan waxaad arkaysaa marar fara badan qadaayaadka social media lagaga hadlayay waa masaa'il diini ah dadka ka hadlayana dad ehelo ama dad yaqaan ma dad xataa wax u bilaaban yihiin ma haddii aan muxuu ahay ayna diintu marjiciye lahayn oo inta taqaana aan loo daynin fasaad bayn baa idana ka dhacay Allah tabaaraka wa ta'ala quraan kariimka waa keenoo u sheegay arrimaha in loo celiyo dadka ulul amriga wa idha jaa'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذا مسائش ماشي إذا أعلن وذن أهل كذا أعلن شيطان بعد راعي ساس القرآن كله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا شيطان بعد مركا كدوف سنة مركا مسألة دينية قشة هذه هلو تحذروا وحق الله صباحي وقضب مهمة إن أي أمضوا ولي أباهن تهي إن عقيدة ده هي عقل جذب الله حريه وحنمود إني أمض أنت هذا بدن إني توحيد كجاري ما أنت عد مال أنت الله وحد الله إلى هذا هاي صدقات شنين أنا جاي حرناو ومسكح ذا لقى قفلاي أدون كان الصوّد فرماي بيني سنشرين بين مودي لكن waxa soo baxday wali inay jiraan dad u qafaalan oo u baahan in laga xoreeyo maskax ahaan maxay yeelay wali khuzac balad iyo khuraafaad iyo waxaan jirin ba umada wali qaar lagu maaweelinaya diin looga dhigaya mabaadidi asaaskii diintu ku dhisnay asalka diintani wax way ilaahay kaligiina caabudo Soomaa oo la ilaaha illa allah maxay ka shaqeysaa لا إله إلا الله معناه سو إله كلي هل عابده ما لا إله إلا الله ألا كلي هل عابده بها هذا أمدي قار كقصن تاكور مبدئ دين تبع أساس كوها بالله جيسا بيك بالله بنيس حمل لنا يا حيابه هو ركيمو
laakiin maalmahan waxa dhacay haddaan laba miaal idinka soo qaado islaan waad aragteen islaamihii mudaharaadaha laga soo qaaday Soomaaliya oo ku haysta annagu ilaahay baan caabudnaa oo nabi maxamed baan caabudnaa oo abbaayaan caabudnaa abbaay ma taqaanaan abbaay faadumoy waa tii markay raggu ay xagga awliyada aadaan dumarkuna xaggeeda aadi jireen oo iyaday muxuu ahay ku tawassul jireen marka waa amaama almala rasuulkan caabudnaa oo abbaayaan caabudnaa cibaada waxay tahay waxa laga yaabaa inaysan fahansanayn waxaan isdhihi oo suurtagala in lays yidhaahdo war ruuxaasida waa ruux iska caamay ah oo malaha waan caabudnaada waan jecelahay inuu ka wadaa dhici karta laakiin tafsiirkaasi wuxuusan ku soconaynin markaad culimada wax bartay ee sheekhyadu aad u naabato waxan waa wax dadka lagu ababiyey waay inay sidaa tahayna miaal baan siinaya hal miaal oo isagana social media hadda ku jira wadaadkan la yidhaahdo macalin maxamuud ee qolyahan ahlu sunnaha sheekha u ah ahlu sunna wal jamaaca la yidhaahdo gobolada dhexe waxaad ka helaysaan muxuu ahay social media ku jira ayib xertiisii buu u qisoonayaa qisu u sheegaya qiso la yaab leh wuxuu leeyahay waxaa jira buu yidhi waxaa jiray sheekh la yidhaahdo salmaan magaciisa la yidhahdo wuxuu ahaa weli samada fuula oo duuluu ahaan jira markuu dhaqaaqahayo duulidda bilaabayo wuxuu dhihi jiray yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan markaasuu ku dhaqaaqi jiray markaa sida diyaarad muxuu ahay runwaygeeda ku kacaysoo kale yaa xanaan markaasuu kacaya khaadimkiisii ama nin muriidkiisa ah ayaa wuxuu ku yidhi sheekhow inaan ku raacaan rabaa inaan kula duulaan rabaa markaasuu sheekhi wuxuu ku yidhi qalbigaagu waa daciif ee inaad raacda ma kari kartide iska joog muriidkii waa ku adkaystay mee sheekh inaan ku raacaan rabaa markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yidhi dayib inaad raacdaan salaamad rabtaan soo maaha markaan dhaqaaqo anugu aan dhaqaaqayo oon duulidda bilaabayo waxaan dhihi yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan aduguna waxaad tidhaahdaa yaa salmaan yaa salmaan yaa salmaan kadibna isoo raac yaa duulidda isoo raac wadaadku muxuu leeyahay yaa xanaan muriidkuna muxuu leeyahay yaa salmaan waa magaciisa waa la dhaqaaqay wadaadkii wuxuu yidhi yaa salmaan wuxuu yidhi yaa xanaan waa dhaqaaqay muriidkiina yaa salmaan waa ka daba dhaqaaqay waa la wada duulay hawada sare mar la joogo oo halkaa kore la marayo ayaa muriidkii waxaa u yimid ibliis shaydaan baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ayuha arajulu kafarta billaah shaydaan baa ku dhahaya warniyahu ilaahay waad ku gaalowday miyaadan maqlini waxa sheekhaagu leeyahay oo muxuu yahay yaa xanaan buu leeyahay waana magac ilaahay magacyadiisa ka mida adiguna magicii sheekhaagaad ku dhawaaqaysaa soo gaal ma tiid buu ku yidhi yaa ku dhahaya shaydaan baa ku dhahaya hawada saraana la maraya markaasuu wuxuu ku yidhi war gaalnibaad ku dhacdee yaa salmaanka intaad iska daysa yaa xanaan dheh muriidkii warkii buu qaatayoo markaasuu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo yaa xanaantu yidhiba waa soo dhacay yaa xanaan hadduu yidhiba waa soo dhacay sheekhii baa qabtay waa dejiyey dhulkuu geeyey halkaa markuu sheekhu qisada marinayo ardadii iyo isagiiba waa isla qosleen waa la isla marqaabay safartii iyo duulitaankii sheekhii ka soo noqoy muriidkii baa weydiiyey wuxuu ku yidhi sheekhow magacaaga markaan qabsadayna waan duulay magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco waan duuli kari waayey sababtu maxay tahay wuxuu ku yidhi
magaca ilaahay waxaa ku duula ninkii ilaahay yaqaana caarif billaah waa darajo dariiqooyinku gaadhaan wadaadadu ninkii caarif billaahi baa magaca ilaahay ku duuli kara aduguna caarif billaahi ma tihidoo maadan gaadhin haddaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay maadaama anigoo caarifa aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay ilaahayse magaciisa kuma duuli kartid markaad magacii ilaahay intaad qabsatay kii sheekhaaga aad meel iska dhigtay waa adiga soo dhacay buu ku yidhi maxaad halkaa ka fahanteen war wixii munaaqibkii ku qornaa ma aha munaaqibkii sheekh cabdulqaadir jiilaani wixii ku qornaa ma aha manaaqib aways wixii ku qornaa ma aha waa wadaad hadda jooga oo ummad hor jooga oo weliba qoryo haysta oo intaasoo kuraasa haddaan laysiinin nidaam dhismi maaya leh oo ahlu sunna wal jamaaca oday u ah Soomaaliyeed ilaahay baan kugu dhaariyay ruux muslim oo jaahil ba ha ahaadee oo caqiidadii asalka uu ku dhashay haysta aan la fasaadin xataa aan waxba baranin miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo ka sheekhuna waa ku anfacaya miyaa laga dhaadhicin karaa marka waxa soo baxday ummadii dhib haysta ummadii qaar kamida dhib haysta waana arin u baahan in wax weyn laga qabto waa hal qiso laakiin qisooyinku way baday social media-na waad ka dhirgi kartaan waxa dhex yaalay noocaas oo miidhan annagiyo marka qolyahan dariiqooyinka maxaan isku haynaa waay war dariiqooyinka kuraas iskuma hayno kuraasti rag kala ku fadhiya oo aan dariiqana ahayn annagana ahayn baa kuraasta ku fadhiya kuraas iskuma hayno xoolana iskuma hayno annagana xoola kama qaadano dadka iyagana malaha siyaaradii inay ka go'day baan malaynaa xoola iskuma hayno adduunyo kalena la iskuma hayo laakiin maxaa la isku hayaa waxaa la isku hayaa war addoommadan ilaahigii abuurtay ku xidha khalqigana ka gooya iyo meehe addoommadani ilaahay toos uma aadi karaan annaga han ugu xidhmaan islaan isku hanno intaa waay sooma waa midii ahlul kitaabka alla ku yidhi nebiga ku dheh yaa ahlal kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله والوداد با دولي إيه وداد با دولك يعرك كلاهية إيه وداد با إذن إرساقي إيه وداد با واحد سين إيه وداد با جنة إذن قادي إيه وداد انت دادك كديسان إلهي كحرا إيه ما هي دادك إلهي ما كم مقلوة وحال يابله وآل لولا يابا قصة إبليس يا الشيطان باوحوا ليه هنين كان مريد كأه ورواد قالوا ذي إلهي مقعيسى قبصه شيخين محوليه ورمقع إلهي كتغو كيغا قبصه حتى ما إبليس با توحيد داما يا إبليس باوحوا كله ورواد قالوا ذي مقع إلهي قبصه شيخ مقعيسى كتغ شيخين محوليه وركيغا محوها كإلهي كتغو كيغا قبصه حتى قصة قابك وش هيجيو إبليس إنه عقيدة دامو وحسيد أوها اللي قصص كنوع عصو كلتا يعني حتى مدريمي ساس درادد أمدن وحوبة أنت هاي إن لحوريو عقلي جيدا إن لحوريو عقيدة جيدا إن لحوريو إن لقى حوريو خرافات كنوع عصو كلا وحنا الولد قال سين هنا وإنت وحنا الولد قال سين إنت هو أمدن إن لقى دايو إلهي جي أبو تلقوا حراه إلهي كلجي بريء إلهي تلصارته إلهي وحكرت سدا وذات كني ومخلوق أن وحبه يسنين وحبنا مهلي كرو وان طولي وحجر معها سمادان ضدك قبتي وحجر معها وحاسي خرافات كاسي متشراني والخلق يو إلهي عابده دينتي نبي محمد تصل الله تمد أديانتي السماوي قاعد كل مبدأ سلي ماده قضب كان اسكو هنا وقضب كاسي ما أها النفع الدنيا يوحكل الاسكو ما هي